burburkii kadib waxaa Soomaaliya soo wajahday waxbarasho la'aan taabatay dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo dhan haba la sii kala daraaday isla markiiba waxaa kacay baraarug lagu soo celinayo waxbarashadii gaar ahaan midda asaasiga ahayd sanadka markuu ahaa 1992kii waxaa la bilaabay dayactirka iskuulada burburka sameeyay waxaan goobjoog ka ahaa aabahay Sheekh Odawaay waxa uu dayactir ku bilaabay iskuulka Maxamuud Xarbi oo dad badan oo kamid ah hadda meeshaan fadhiya ay markaas kadib ka soo aflaxeen ka horna qaar badan ay ka aflaxeen oo aan aniguna goobjoog ka ahaa iyadoo qubuuro badan oo dagaalkii sukayo ku laaday laga faagay halkaas oo meel kale dib loogu aasay sidaas ayaana wadanka oo dhan looga wada furay iskuulo kala duwan kuwaas oo muddo kooban soo saaray arday u diyaarsan heer jaamacadeed and I remember all those faces oo meeshaan fadhiya in badan oo kamid ah maalintii Sima soo bilaabayeen maalintii Maxamuud Xarbi soo bilaabayeen maalintii Axmed Gurey soo bilaabayeen maalintii Garow iskoolka laga dhisay maalintii Hargeysa laga dhisay the vision wuxuu ahaa in dad baahida dalkan soo kabta la gaaro su'aasha maanta soo hartay waxa ay tahay maxay qalin jabintaydu ku soo kordhinaysaa Soomaaliya marar badan oo kamid ah waxa laga yaabaa inaad soo aragto yani tiny piece wax yar oo aan macna badan lahayn laakiin ogow Soomaaliya waxay ka koobantaa aniga adiga annaga iyo iyaga oo la isku daray marka haddii nolosheena aan hormarin aniga iyo adiga waxaan qayb ka qaadanaynaa xalka Soomaaliya waana in aadan iloobin labadan aayadood oo kala ah oo fawqa kulli dhi ilmin aliim wama utiitum min al-ilmi illa qalilan sadaqa Allahu al-azim